ninkan wuxuu ka badbaaday labadii bam ee lagu dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan intii lagu gudi jiray dagaalkii labaad ee dunida. labadii bam ee lagu dhuftay dalka Japanna wuxuu ku waayay maqalka dhagtiisa bidix. sidoo kale xaaskiisa ayaa dhaawac ka soo gaaray, halka caruurtiisa oo idinla dhibaatooyin caafimaad ay kala kulmeen weeraradii ka dhacay magaalooyinkaasi. bal aan si fiican kuugu sharxo. kani wuxuu ka mid yahay dad fara ku tiris ah oo ka badbaaday labadii bam ee nuclear-ka ah ee Mareykanka ku dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. waxaan lagu magacaabaa Tsutomu Yamaguchi, waana qofka kaliya ee la aqoonsan yahay ilaa iyo hadda ee ka badbaaday qaraxyadii Hiroshima iyo Nagasaki. ninkan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida wuxuu ahaa injineer, sidoo kale uma uusan maleynin in Japan weeraro noocan oo kale ay ka dhici karaan. wuxuuna safar shaqo uu ku joogay magaalada Hiroshima ee dalkaasi Japan. dowladda dalka Japan weeraradaasi gaar ahaan labadaasi bam waxay ku weysay nolosha kumanaan qofood, 140,000 oo qofood oo bamkii koowaad ay ku geeriyoodeen, halka 74,000 oo qofoodna ay ku geeriyoodeen bamkii labaad. ka hor inta aanan magaalada Hiroshima aanan lagu dhufanin bamkii koowaad, xaaladdu magaaladu waxay ahayd mid aad u degan. shacabka magaaladana jawi degan ayay ku jireen, waxayna subaxaas u soo tooseen nolol maalmeedkooda. goobihii shaqada ayaana guud ahaantood furnaa. laakiin hal mar waxaa isbedelay jawiga goobta, jawiga magaalada. xaaladda guudna waxay noqotay mid isbedel badan uu ku yimid. ninkan waxa uu safar 3 bilood qaatay ku joogay magaalada Hiroshima. arrimo ganacsi darteed ayuuna u joogay, wuxuuna qorsheynayay in maalmo kadib uu ka tago dalkaasi Japan. isaga iyo 2 nin oo kale oo saaxiibo ay ahaayeen ayaa waxay u socdeen meel tareenka laga raaco. ugu dambeyntiina bamkii koowaad ayuu Mareykanka ku dhuftay dalka Japan, gaar ahaan magaalada Hiroshima. bamkii koowaad 140,000 oo qofood dad gaaraya ayaa ku nafwaayay kuna geeriyooday. laakiin ninkan dhagtiisa bidix maqalkeeda ayuu ku waayay maadaama bamku uu ahaa mid aad u xoog badan. wuxuuna sidoo kale awoodi waayay ninkan inuu ka kaco meeshii uu ku dhacay. qandho ayaa qabatay, isbuuc ayuuna mategayay ninkan. Yamaguchi wuxuu ahaa ninka kaliya ee ilaa iyo hadda taariikhda ku diiwaan gashan ee la aqoonsan yahay kana badbaaday weeraradii kala duwanaa ee ka dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. isaga xaaskiisa oo isaguna safar kula joogtay halkaasi ayaa ka mid noqotay dadka ka badbaaday, inkastoo xaaskiisa markii dambe dhibaatooyin iyo halis caafimaad darteed oo soo wajahday ay u geeriyootay. ugu dambeyntii xaaladda xaaskiisa ayaana guud ahaan isbedeshay. ninkan dhawaqa qaraxa dartiis dhegtiisa bidixda maqalkeeda ayuu waayay. sidoo kale ninkan maalmo ayaa tintiisii la la'aa oo ay hadsanayd guud ahaanteedba. muddo badan ayuuna sidaas ahaa. xaalado caafimaad darro ayaa soo wajahday. xaaskiisa waxay geeriyootay sannadii 2008 iyadoo 88 sano jir ah. dhibaato caafimaad oo ka soo wajahday kilida iyo sidoo kale beerka. sidoo kale 3 carruur oo kale oo ninkan uu dhalay ayaa iyaguna xaalado caafimaad dartood dhibaatooyin soo wajahday guud ahaanba. waana ninkan ninka kaliya ee ka badbaaday lana diiwaangeliyey ilaa iyo haddana la aqoonsan yahay qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka iyo weeraradii bamka ah ee lagu dhuftay magaalooyinka Nagasaki iyo sidoo kale Hiroshima. ninkan 2009kii ayuu isagu dhibaato caafimaad oo aad u daran soo wajahday. kansarka caloosha ayaana ku dhacay, laakiin ugu dambeyntii waxa uu geeriyooday 4 January 2010. wuxuuna ku geeriyooday magaalada Nagasaki isaga oo 93 sano jir ah. dowladda shacabka dalkaasi Japan labadooduba ilaa iyo hadda qalbigooda kama uusan go'in weeraradii aadka u xooganaa labadii bam ee nuclear-ka ee lagu garaacay dalkaasi Mareykankana uu ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. ilaa iyo hadda shacabkana way xasuustaan. magaalooyinkaasina hal mar ayay isbedeleen, muddo ayayna xaaladoodu ahayd mid allow sahal ah oo dhibaatooyin kala duwan oo aad iyo aad u waaweyn ayaa guud ahaanba ka jiray. dagaalkii labaad ee dunida, Japan waxay ka mid tahay dowladaha aanan si fudud ku hilmaami doonin dagaalkaasi. ilaa iyo haddana waa ay xasuustaan dhibtii ka soo gaartay dagaalkii labaad ee dunida, gaar ahaan
dadkii ay ku waayeen qaraxyadii lagu dhuftay iyo bambaanooyinkii lagu dhuftay magaalooyinka Nagasaki iyo Hiroshima ay ku waayeen isku darka dad ku dhow 200,000 oo qofood. muuqaalkii maanta intaan ayaan ku soo koobayaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.